mar saddexaad iyo mar afraad waxa xaggan ka socda saakay horumar ballaaran horumarkaasoo waxa weeye markabkii labaad inuu ku soo xirtay dekedda Garacad kaasoo wada waxa weeye hawl iyo shaqadii dekedda ka mid asagoo wada waxaan leenahay marka waa horumar soo siyaaday oo u soo siyaaday Soomaaliya u soo siyaaday Puntland u soo siyaaday waxa weeye gobolka Mudug u soo siyaaday iyo dhammaan waxa weeye geeska Afrika oo dhan uu soo siyaaday dekedan waxa weeye dadka laga warramayo waqtiga ay soo madhay iyo xilliga ay soo madhay iyo waxa weeye hadda meesha maraysa cid looga warramayo qof kasta ishiisa u macallina ka door ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka deegaanka oo waxa weeye aad iyo aad inay hirgasho mudnaanta koowaad waxaan siinayaa dadka deegaanka oo inay hirgasho dhabarka u xirtay hadday amni ahaan tahay hadday dal ahaan tahayba waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa doorka ay ku leedahay dawladda Puntland waxa weeye mid kale ay ku leedahay maamulka deegaanka ay dhamaantood waa u mahadcelinayaa annaguna waxaan leenahay ka door ahaan dhaqanka waxaan leenahay soo dhawaada qof kasta oo Soomaaliyeed bay u furan tahay dekedan mar walba iyo xilli walba waxaan leenahay gacmo furan baa ku soo dhaweynaynaa xaflad weyn oo aad loo soo agaasimay loogu qabtay markii saddexaad ee lagu soo xiro dekedda caalamiga Garacad oo ayadoo horay ay ugu soo xirteen laba markab oo mid ahaa taagii u shaqaynayay dekedda iyo markabkii saddexaad oo hadda u xiran oo qalab u wada oo ahaa shirkadda wadaagsan aad iyo aad baa wax loogu farxan tahay annagoo dhanna waan ku faraxsanahay hal arrin ayaan u soo istaagay meesha arrintaas oo ahaa in maadaama ay dekeddaanu ay deked caalami noqon doonto waxaan guddiga sare ee boorka ka codsanayaa in loo sameeyo xafiis ay wasaaradda caafimaadka maantana nasiib wanaag waxaan ka soo qayb galay furitaanka dhamaystirka dekedda oo saddex fays hadda kii labaad lagu jiro kii saddexaadna insha allah uu dhammaan doono sanadka aakhirkiisa maamulka dekeddu ay noo sheegeen aad iyo aad baan u faraxsanahay dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan ku dhiirigelinayaa dekeddii Garacad inay dhammaanayso mar dhowna ay u adeegi doonto ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo joog السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magaxayga waxaa la yiraahdaa Kabtan Ibrahim Xaaji Cali Ciise chief pilot baa meesha tan marka waxa weeye aad iyo aad dekedan u baaxad weyn tahay xagga maneuverka kala wareegida marka ku soo kala wareegayo aad iyo aad baa waxa weeye waxay leedahay space aad u ballaaran ilaa 1 kilomitir soo kala wareegi karo marka waxa weeye aad u ballaaran tahay insha Allah waxa weeye maneuverka marka ku okay halkan waa taag guudkii meesha waa taagan waxa weeye asagana waxa la yiraahdaa master baa la yiraahdaa waa taaga adduunka caalamka wax ka soo jeeda maraakiibta ilaa 20,000 ilaa 30,000 buu riixaya ama soo jeedaya meel kasta uu tagaya Pacific Atlantic Indian Ocean meel kasta uu galaya kii caariya oo caalamka meelaha ku caariya Indian Ocean asaga ayaa ka soo jeedaya Kenya meesha hab loo baahayay waxaan salaamayaa guddiga wadaagsan ee boorka dekedda Garacad waxaan salaamayaa gudoomiyaha degmada Jariban iyo xildhibaanada waxaan salaamayaa gudoomiyaha degmada Garacad iyo xildhibaanada Garacad waxaan rabaa inaan ku hadlo afka ganacsatada waxaan ugu baaqayaa ganacsatada dal iyo dawlad meesha ay joogaan wax badan baa waxa la siiyay dekedda Garacad ma fura Garacad laba dekedood baa ku xiran taagii yimid xalfadii labaad markabkii dekedda u waday Garacad qalabka asagana waa diyaarsan yahay